dadka reer Laascaano oo inta wareejinayay maxaabiista Somaliland iyo ku raaligelinayay beesha saacad wax la yaab leh ninkii Faisal Bootaan oo dhibaatadii laakeed geystay oo ummadii xasuuqay ayaa maalin walba isagoo macuuso iyo go'yaal shaala wata laga soo dinaya social media ninku ma waftiba مفروض نوتميبا ما نبضونبا سو محبوس نكون مساهي نكي عرورتني لاي دتكي لاي waxaan leeyahay dadka reer Sool ama madaxweynaha fadhiyo sareeyo hadda maanta hoggaanka madaxweyne waxaas wax ka qabo waxa way ummadda ay ku xishoon dad hartiyeeda yimid soo gurmaday oo garabkeena ahaa inay maalin walba tusno maxaabiista ay mudnaan siinayno gafayno wata inagana sumcad darayno wata من بقدم بيننا جتاي مع قبلنا إنه عاصمة شرطه تاس وحوي إن نجو لحظة حتى إسبوعين خلص تام كان كي معدو سومالن ضدنا نول بهيستها أي قبضة تشون التواصل كار ضد أي حلك هيستي ضد بوجود وشراوي ضد كاسو ضد بالليل حبيس منو هيصنع مانت حبيس تأنا كلنا ما حدث كيجي نجود لك اليوم حبيس Somaliland dagaaladii hore ee naga qabtay waa jiraan sida uu la dhaqmayeen way arkeen xabiista way jilbiyeen way bahdilayeen iyagoo muuqaal ka duubay waxay lahaayeen dadkan waa shabaab anagana maxaabiistoodii in maamusna xaq bay u leeyihiin oo wuxuu waa maxbuus laakiin in ka badbadino inagana gafayno wata iyagii naftigooda wuxuu haystaan dad baqaya inay nahay maanta